kulanti wanaagsan dhageystayaasha iyo daawadayaasha ku xiran barnaamijka tixanaha ah ee aan ku falanqeynayo xubnaha ka tirsan Illuminati. barnaamijka yaga tixanaha qaybtiisii koowaad waxaan uga soo hadlay waxa ay ku saabsiisan tahay Illuminati. imikana qaybta labaad sidii aan ku ballan qaaday qaybtii koowaad ee dhamaadka barnaamijkii hore waxaan ku sheegay inaan uga hadli doono qaybta labaad qoyska Jacob Astor. imikana qoyska Jacob Astor iyo qaybta labaad. barnaamijka waxaa soo saaray tarjumay idilana socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed. waxaan ka soo tarjumay dhiganaha xubnaha ka tirsan Illuminati ee uu qoray Ferris Premier 1999 aasaarta taariikhda iyo kaydadka dhigaalada aysan weli ka bixin iyo weliba afkaarta ficilada Illuminati iyo maasooniyadda kuwaasi oo isku bahaystay in ay dunida ka dhigaan hal dawlad ay iyagu daaha gadaashiisa ka maamulaan. tixanayaasha inta ay socdaan waxaan ku soo bandhigi doonaa wax badan aadan adiga ogeyn oo fajac kula noqon doona, balse imika qaybtanada labaad waxaan uga hadlaynaa John Jacob Astor. waa aasaasaha asalka ah ee nasabka Astor ama qoyska Astor. waxa uu ahaa John Jacob Astor. waxa uu dhashay 1763 waxa uu geeriyooday 1948. John Jacob Astor waxa uu ku dhashay magaalada Waldorf tuulo la yiraahdo Baden ee dalka Jarmalka. asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa farac Yahuudi ah. asalka Yahuudda waa la qariyay in badan oo ka mid ah fikradaha kala duwan ee hidaha Astorna waa John Jacob Astor waxa la geliyay kaydadka dhigaalada ee qoyska Astor. John Jacob Astor waxa uu kamanley ka ahaa magaalada Waldorf ee dalka Jarmalka 1784. waxa uu yimid Mareykanka kadib markii uu ku hakaday magaalada London ee cariga dalka Ingiriiska. inkastoo sheekadu tahay in uu yimid Mareykanka lacag la'aan, taasna run ayay noqon kartaa. waxa uu si dhaqso leh ugu biiray kooxda ama ururka maasooniyadda 2 ilaa 3 sano in u dhaxaysa gudahoodna waxa uu ku noqday masterka ama darajada la yiraahdo Holland Lodge. maasooniyadda ayaa waxay leedahay darajooyin la yiraahdo lodges. darajooyinkaasi mid ka mid ah ayuu noqday mid ka mid ah asaasayaashii Illuminati, John Jacob Astor, magaalada New York ee dalka Mareykanka. hoygani loo yaqaano Holland Lodge waa hoyga caanka ah in qaar badan oo ka mid ah xubnahooda ay xiriir wanaagsan la leeyihiin dadka aqoonta u leh Illuminati. sanado badan bulshada Royal ee Edinburgh markii ay ahayd 1788 Astor waxa uu caan ku ahaa hoyga macbadka. tani waa mid xiiso leh marka la fiiriyo Astor inuusan ku hadli karin luqad Ingiriisiga markii uu yimid dalka Mareykanka oo loo maleynayay in uu aad u liitay. John Jacob Astor waxa uu had iyo jeer caan ku ahaa inuu noqdo qof qalbi furan dhanka bulshada, soo jiidasho dhow, laakiin nin aanu lahayn soo jiidasho aqli ama nimco ama dhaqaalo. orahdan waxa ay ka timaadaa xitaa qof ka mid ah qaraabada reer Doban waa mid ka mid ah qoysaska 13 kor u dhaafayay ee aan shalay barnaamijka ku soo magacaabay. Doban oo qoray taariikh nololeed qiiro leh oo cinwaankeedu yahay qoyska Astor. haddii ninkani aanu haysan karaamo bulsheed oo uu aad u liitay sanadihii u horeeyay ee Mareykanka ku noolaa, maxaa uu ugu kacay ku biirista maasooniyadda caanka ah? maxaase sabab iyo ujeeddo u ahayd? xaqiiqda ma ahan sharaftiisii ku lahaa bulshada. fasaxii maaliyadeed ee asalka ahaa waxa uu ku yimid fulinta xane ahayd heshiisyo mugdi ah oo qaloocan. burburkii agagaaraha magaalada New York markii 2 nin oo hadda la og yahay in ay ku sugnaayeen Illuminati oo ay siiyeen John Jacob Astor mudnaan gaar ah, taas oo uu kaga mid noqdo dawladda. 2 nin waxay ahaayeen Professor Jefferson iyo xoghaye Gallatin. labaduba waa xubno ka tirsan Illuminati. dawladda Mareykanka waxa ay xayiraad saartay dhammaan maraakiibta Mareykanka in ay badeecada
la socdaan 1807. laakiin Astor waxa uu ogolaansho qaas ah ka helay labada nin si markabkiisa ugu raaco xamuulkiisa oo aan la baarin. waxaa markabkiisii u soo xarayn jiray maalintii macaash lacageed oo gaaraya $200,000 Mareykanka. Astor waxa uu si yaab leh uga faa'iidaystay dagaalkii 1812 kaas oo curyaamiyay ku dhawaad dhammaan rarkii kale ee maraakiibta Mareykanka. Astor waxa uu kala shaqeeyay George Clinton inuu noqdo xubin ka tirsan Illuminati iyo arrimo ku saabsan heshiisyada dhulka. xitaa muddadaas taariikhda sirdoonka dalka Ingiriiska waxa uu u shaqeeyay guddiga 300 la yiraahdo oo iyaguna ka tirsan Illuminati iyo Maasoniyadda, xiriir dhow uu ka dhaxeeyo iyo 13 qoys ee ugu sareeya Illuminati. waxaa xiiso leh markaa in John Carluman uu marin u helay. waxaa sidoo kale la ogaaday in John Jacob Astor uu ahaa wakiil qarsoodi u ah markii uu tagayay dalka Mareykanka. 13 qoys waxa ay leeyihiin door aad u dhow oo ay leeyihiin laamaha sirdoonka Mareykanka iyo Ingiriiska. waa laba madal oo ay aas-aaskeeda soo bilaabeen. waa laamaha sirdoonka Mareykanka iyo Ingiriiska, Illuminati iyo Maasoniyad. kahor 1817 John Jacob Astor waxa uu ku biiray ganacsiga fur trade ama ganacsiga dhogorta. waxa uuna ahaan jiray ganacsadaha ugu dhaqaalaha badan fur trade ilaa uu ka soo baxay 1834. maskaxda ku hay dadka cadaanka ah ayaa dhowr sano ee qarniyo ah maamuli jiray dunida cusub imika iyo Hindida. markaa ninkan Astor ayaa imaanaya oo dhowr sano gudahooda waxa uu gabi ahaanba ula wareegay warshadaha oo dhan. mar labaad tani way dhici kartay maxaa yeelay awoodda qarsoon ee qoyskani Astor ayaa iyaga xaq u siiyay sida iska cad kuwa kale ee ka tirsan guddiga 300 la yiraahdo ee Illuminati ka tirsan. waxa ay ahayd inay dhinac iska dhigaan haddii booskii kala saraynta uusan siinin Astor. Astoria waa madal dhab ah oo loogu talagalay heshiisyada qarsoodiga ah ee shaydaanka ee Aragon. John Jacob Astor waxa uu lahaa dhowr xiriir oo waxtar leh. 3 ka mid ah qaraabadiisa waxay ahaayeen kabtanadii maraakiibta. waxa uu xiriir ku lahaa London iyo qoyska la yiraahdo Black House ee dalka Ingiriiska. waxa uu guursaday Todd, qoys inta badan xiriir la leh shayaadiinta ayuu ku biiray. xaaskiisa Todd ayaa sidoo kale ku xirnayd qoyska saameynta leh ee Beaufort. ugu dambeyntiina sababo jira awgeed John Jacob Astor waxa uu sidoo kale xiriir wanaagsan la sameeyay siyaasiyiinta xilligaasi. maxaa yeelay inta badani waxa ay ahaayeen Maasoniyiin. muddo dhowr sano ah John Jacob Astor waxa uu ka qayb qaatay ka ganacsiga opium waa darago qabatin culus leh oo gaduudan oo midabkeedu culus yahay oo laga diyaariyay casiirka pomka ama opium poppy oo loo isticmaalo maandooriye ahaan iyo daawo ahaan sida xanuun joojiye ama anti-pain. laakiin 1818 waxa uu si cad uga joojiyay u adeegsiga opiumka dalka Shiinaha. John Carluman buugiisa la yiraahdo The Conspiracy Hawji sheekada guddiga 300 la yiraahdo ee Illuminati ka tirsan cutubkiisa ama boggiisa 131 waxa uu xusayaa in John Jacob Astor uu nasiib u yeeshay ganacsiga opium ee dalka Shiinaha. waxa ay ahayd guddiga 300 oo doortay cidda loo ogolaan doono in ay ka qayb gasho ganacsiga faa'iidada badan leh ee opiumka waddanka Shiinaha iyada oo loo marayo shirkadeeda kaliya ee la yiraahdo BIEC ama BIEC. arrin xiiso leh ayaa qoys kale ee 13 qoys ugu sareeya ee la yiraahdo Russells waxa uu ka mid yahay qoysaska Illuminati. sidoo kale waxa uu ka mid ahaa kuwa nasiibka u helay in la jaro qayb ka mid ah ganacsiga Shiinaha ee opiumka. waa iska caddahay si isdaba joog ah marka loo eego taariikhda in Astor uu aqoon u lahaa macluumaadka gudaha ee dawladda Mareykanka.
uuna ilaaliyey nidaamkiisa warqadaha ama nidaamkiisa sirdoon waxa la yiraahdo nidaamkiisa sirdoon oo u ahaa dalka Ingiriiska. John Jacob Astor waxa uu iibsaday dhulal aad u tiro badan oo ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka, taas oo keentay in uu aad u kordho qiimaha iibka dhulalka xilligaasi. argagaxa maaliyadeed ee dhacay 1837 waxa uu ogolaaday in uu ku xayiro amaahda badan ee isaga loo soo doonto. hantidii John Jacob Astor cirka ayay isku sii shareertay. mid ka mid ah taariikh nololeedka ayaa waxa ay tibaaxaysaa markii Astor ay u timid su'aasha mabda'a iyo faa'iidada waxa la yiraahdo. waxa uu ahaa nin wax ku ool ah. Astor waxa uu caan ku ahaa in uu noqdo milkiile aanu naxariis lahayn. waxa kale oo uu sumcad ku lahaa in aanu bixin deyntiisa sharciga ahayd ee canshuurta. Astor waxa uu noqday bangi loo soo doonto deymaha. waxa uuna ka mid noqday guddiga shanaad ee bangiga qaranka ee Hamilton ee uu sameeyay dawladda Mareykanka, kaas oo imika loo yaqaano bangiga dhexe ee Mareykanka. Astor waxa uu lahaa dhismo weyn oo uu isticmaali jiray kaydkiisa bangiga Mareykanka. Astor sidoo kale waxa uu ahaa mid firfircoon oo firfircoona maasuuniyadda intii uu noolaa. isaga oo jagooyin muhiim ah ka soo qabtay maasuuniyadda, John Jacob Astor waxa uu ahaa ninka ugu taajirsan dalka Mareykanka waqtigaasi. xusuusno tixraacan Myers Gustavus taariikhda nasiib wanaagii Mareykanka. London Hallows Stationery 1909 bogga 147 ayaa qoraya in tirikoob la soo saaray sanadkii 1844 soo saarayaasha Mareykanka waxa uu muujiyay wadarta guud 307,996,844 in la maalgeliyay hantida Astor. hantida Astor markaa waxay ahayd 15 meelood meel. dhammaan lacagta lagu maalgeliyay dalka Mareykanka oo dhan marka loo eego dhismihiisii iyo wax soo saarkiisii. John Jacob Astor faracyadiisii waxa ay lahaayeen xiiso qarsoodi ah. waxa ayna dejiyeen waxyaabo ay ka xukumaan daaha gadaashiisa. taa beddelkeedna qaar ka mid ah qoysaska kale ee uu uga sareeyay Astors waxa ay doorbideen in aysan la fadhiisan gudiyada shirkadaha ay xukumaan. 1890 qabiir ku takhasusay dhismaha ayaa xisaabiyay 1 ilaa 20 dhismayaasha ay leeyihiin qoysaska Astors ee guryaha magurtada ah ee magaalada New York dalka Mareykanka. kadib markii hantidoodii ay heleen qoyska Astorska iyo guud ahaanba waxa ay u guureen dalka Ingiriiska. weli waxa ay isticmaalayaan awood maaliyadeed ee weyn dalka Mareykanka gudihiisa, iyada oo loo marayo wakiilo ay abuurteen. majalada Forum November 1889 ayaa faalo ka bixisay in mas'uuliyiintu ku qiyaaseen Astors in ay u dhiganto dhaqaalahooda $300 milyan oo dollarka Mareykanka. laakiin tirada imika waa mid la dhayalsan karo. waa xilligaas waxa aan ka hadlayo 1900 bilowgiisii. mid ka mid ah hantida badan ee ay Astors abuurtay oo ay dhaqaalaha ku bixisay waxa uu ahaa Finch Astors Foundation oo ay ka maamusho dalka Ingiriiska. waxa ayna ka bixiyeen canshuur gaaraysa $100 milyan oo dollarka Mareykanka. waxa ay sidoo kale dhaqaale siiyaan Catholiga iyo Episcopalian iyo waxyaabo kale. waxa ay sidoo kale lacag siiyaan hay'adaha ka soo horjeeda lahaanshaha qoryaha gaarka loo leeyahay. waxa ay lacago siiyaan maktabadda dadweynaha ee New York. bal qiyaas saameynta intee in la eg oo ururo siyaasad iyo kuwa kaleba ay dhaqaalo siiyaan. jagooyinkii uu soo qabtay John Jacob Astors waxa uu agaasimo ka soo noqday shirkadda la yiraahdo American Express Company. waxa uu sidoo kale agaasimo ka soo noqday bangiga la yiraahdo Chase Manhattan Bank of the Rockefellers. sidoo kale waxa uu agaasimo ka soo noqday shabakadda la yiraahdo City and Suburban Homes. sidoo kale waxa uu agaasimo ka soo noqday Classical Cinematograph Corporation. waxa uu sidoo kale agaasimo ka soo noqday shirkadda
Cuban Dominican Sugar. jagooyinka iyo xilalka uu soo qabtay aad iyo aad bay u tiro badan yihiin dhanka siyaasadda iyo maasuuliyadaba. 1894 John Jacob Astor waxa uu qoray sheeko la magac baxday A Journey in Another World, halkaas oo uu ku sifeynayo bulsho ka shaqeysa fikradda ah ilaalinta tamarta. dabayaaqadii 1800meeyadii Illuminati waxa uu bilaabay inuu dib u qaabeeyo hawlahooda dibadda ee heerarka sare. waxa ay bilaabeen in ay abuuraan ururo qarsoon oo daaha gadaashiisa ay ka maamulayaan. amiirada Illuminati waxa aan rumaysanahay ugu yaraan 5 ka mid ah qoyska Astors inay hadda ka tirsan yihiin xubnaha bulshada xajka waxa ay ku magacaabaan Illuminati. waxaana dhowaan xujaajtu ka mid ahaa David Astors, John Jacob Astors iyo weliba William Wildorf Astors. intii lagu guda jiray 1970meeyadii Byron Astor of Havre waxa uu ahaa madaxweynihii laanta xujaajta ee London ariga dalka Ingiriiska. tani waxa ay muujinaysaa in Astors of Havre uu ugu yaraan ahaa heerka ama darajada xigta ee amarka Illuminati. ilaa 20 qoys kale ayaa xukuma kooxda, sida qoysas qaarkood ka soo jeeda dalka Mareykanka. waxa ayna maamulaan urur ka faracmaya Illuminati ee lagu magacaabo ururka qalfoofta iyo lafaha. sidoo kale badanaa waxa ay tani tilmaamaysaa furaha isfahamka shayaadiinta iyo xubnaha ka tirsan Illuminati. sanadkii 1910 ururka qalfoofta iyo lafaha ee ka mid ah laamaha Illuminati waxa ay dib isugu qaabeeyeen abuuritaanka kooxo la yiraahdo miiska wareega, balse ay caalamka imika ay aad iyo aad ay ugu dhex jiraan dalal badan ay Soomaaliya qayb ka tahay iyo wadamo badan. waxa la yiraahdo hay'ado kale ay ku sheegaan gargaarka iyo siyaasadda in ay yihiin, waana hay'ado asal ahaan ka soo jeeda Illuminati oo uu soo aas-aasay. waxaana magac qarsoodiga ah ee aadka loo qariyay si aynan dadka u fahmin laga dhigay miiska wareega. dagaalada ka waramaya Illuminati iyo maasuuniyadda badanaa ma soo qaataan, waa ay ka gaabsadaan, balse dhiganaha xubnaha ka tirsan Illuminati maadaama uu yahay dhigane qaadaan dhigaya xubnaha iyo weliba hay'adaha iyo shirkadaha ay Illuminati aas-aastay iyo qoysaska Illuminati maamula. Astors waxa ay ahaayeen qayb ka mid ah taageerayaasha dhaqaale ee ka dambeeyay kooxaha miiska wareega ee Pele Royce iyo Milner. waxay ahaayeen kuwa doorka iyo dadaalka weyn ku bixiyay bulshada ay doorteen, kuwaasi oo ku midaysnaa miiska wareega. waxa ayna qayb ka yihiin heerarka ugu sareeya ee Illuminati. Rhodes Trust qayb ahaan waxa ay caawisay maalgelinta nidaamka deeqda waxbarashada ee Rhodes, taas oo imika caalamka caan ka ah maaliyadda lagu dibiro deeqahaasi waxbarasho. waxa uu ka soo baxaa kaydka dhaqaalaha Illuminati. Rhodes oo ah mid ka mid ah dadka ugu darajooyinka sareeya ee maasuuniyadda. waxa uu rabay shacabka maasuuniyadda inuu ka helo maasuuniyadda shacab inay u tumaan, laakiin Milner iyo Pitt waxa ay iska fogeeyeen dhaqankii maasuuniga ahaa iyo dharkoodii iyo wixii la mid ah. sanadkii 1919 macahadka Royal ee arrimaha caalamiga ah ayaa la abuuray. Astorna waxa ay ahaayeen taageerayaasha dhaqaale ee ugu weyn oo u shaqeysa sida daboolka Illuminati. daboolka Illuminati waxa uu qarinayaa gabi ahaanba siraha iyo ceebaha ka dhex dhaca Illuminati. CFR oo iyadana door weyn ka qaadatay geedi socodka dejinta siyaasadda ee dalka Mareykanka imika uu ku dhaqmayo. Waldorf Astoria ayaa loo magacaabay Royal Institute of International Affairs. waxaa jira kooxo kale oo ka mid ah miiska wareega Cecil Rhodes uu magacaabay, waxaana ka mid ah ururkan kale ee la yiraahdo Association of Havres, ururka caawiyayaasha. Cecil Rhodes waxa uu aasaasay deeqda waxbarasho ee Rhodes si uu u qoro oo uu u keeno Oxford ragga ugu sareeya dalal dhowr ah, si halkaasi looga bilaabo barashada Illuminatiga iyo in uu wax ka barto sida loo keeno ama loo soo xirageliyo dawlad waliba ee adduunka, taas oo ka dhigan in ay hoos timaado ururka Illuminatiga.
badanaana waxaa dhacdo siyaasiyiin miisaan ku leh caalamka iyo Afrikada kuwaasi oo ka yimaada jaamacadda Oxford. sababtana waxa ay tahay xiriirka dhow ee ka dhaxeeya Illuminati iyo siyaasiyiinta. gabi ahaanba barnaamijkayaga tixanaha qaybtiisii labaad ee aan ugu hadlayay John Jacob Astor halkan ayaan ku soo gabagabeynaya. inta aan qaybtayadu xigta aanu kaga kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. barnaamijka waxaa soo saaray tarjumay idana socodsiinayay anigoo ah Cabduqaadir Maxamed.